jooga maamul goboleedyada kala duwan ama mas-uulka dowladda dhexe waxbarashada inay intay wada fadhiistaan ay mashruucaas hirgeliyaan si loo helo manhaj magaalo dadka Soomaalida. Nuqtada kale oo muhiimka ah waxay tahay waxbarashada aad ka baraysid ma ka jawaabaysaa baahida. مثلا اسماعيل جبنا وحرشة عادة وطلق الحديث والقصص كي يوضع وحيواني وحرشة حرير للدجاج الجوال والدجاج ضلة والدجاج بلد والدجاج ضلة وحرشة تتعالي كيف تتوقع راسك على شيء يعني كجوال. waxaa ugu baysaa waa miitaal waxaa ugu baysaa dadkii wax maamuli lahaa oo ama garsoor aadi lahaa ama maamul aadi lahaa ama siyaasad aadi lahaa dadkaas waxaa u baahan inaad ilaaliso marka bayskiisoo ilaaliso maxaa yeelay siyaasadda ayaa waddanka ka horeysa siyaasadda waa mid jaangoynaysa barashada aan sheegayno waa mid jaangoynaysa dhaqaalaha waa mid jaangoynaysa isdhexgalka bulshada waa mid jaangoynaysa horumarka bulshada ay samaynayso. haddii aadan diyaarin marka xilli hore waxaa imaanaya qalab ayaa imaanaya axsaabta marka waxyaabaha ay ka jawaabayaan waa su-aalahaas. waxaan wada ognahay annaga nidaamka muddo lagu soo socday waa nidaam meelafoofa oo qabiil ku dhisa waxaana keentay duruuf siyaasiya. haddaa rabtid inaad ka gudubtid waa inaad heshaa sistema ku wareeg muxuu noqon karaa marka nidaamka axsaabta axsaabta mas-uuliyadoodu inay soo bandhigaan fikir dowladnimo oo keeni kara horumar iyo ummadda inay ku wada noolaadaan nabad iyo iskaashi. marxaladda hadda aan maraya dadka Soomaalida ay marayso ay marayaan waa marxaladaas waa marxalad labo isbeddel siyaasi oo keena isbeddel ijtimaaci ama bulshadeed isbeddel dhaqaale isbeddel horumar inuu yimaado. arrintaas ma dhici karto ilaa laga helo afkaar siyaasi oo wajahaysa arrimahaas kuna wajahaysa xuluul siyaasiya oo waaqici noqota. jiilkii hadda jooga waa ka nasiib badan yihiin 5 sano ka hor jiilkii waxbarashada ku jiray ama marxaladda diyaargarowga ku jiray. waxaa la rabaa jiilka soo socda 5 sano soo socota 10 sano soo socota 20 sano soo socota fursad kasta oo wanaagsan oo jirta inay ka weynaato. taasna suuragelaysa ilaa inay diyaargaraysid dhalinyarada hadda joogta. macallimiintii hore waxaan soo sheegay markii dowladnimada ay qortay inay isxilqaameen inay bilaabeen inay ka soo saaraan dadka ay soo saareen maanta waa macallimiinta hadda joogta dadka ay soo saarayaan waxa ay qaba doonaan waa rabaa inay ka horumarsan yihiin wixii macallimiinta hadda ay qabteen. waxaa la rabaa inay waxbarashadu ka qaadanta ay tahay tayada inay ka banaato akhlaaqda inay ka samayso fursadda oo heli kara qofka dhalinyarada inay ka badan doonto. axsaabta marka waxay qaadanayaan dhowrkaas muhiimka maxaa yeelay siyaasadda waxbarashada ayaa waxay weyneynaysaa qaranka meesha cusub. xisbi kasta oo siyaasiga waxaa loo baahnaa inuu ka yeesho aragti siyaasadeed
bulshadaas muddada dheer soo socota sida uga jawaabaysaa dadka Soomaaliyeed ee ogyahay waxay ilaalinayaan waa cadaalad haddii qof kastoo Soomaaliya oo cadaalad u baahan yahay wuxuu ka maarmayaa inuu hoos u qoriyo waxbarashada la rabo inay geesaan u jiro kuma filna intaas dadka aad soo saarayso oo qiyaadada noqonaya ayaa la rabaa siyaasiyan inay arrintaas uga jawaabaan sistamka dowladnimo ee dalka haqaadaya inuu noqdo sistamka jawaabaya baahiyaha kala duwan ee bulshada sistamka jawaabaya tabashooyinka dadka jawaa maxaa yeelay ilaahay wuxuu qalbiga bini'aadam caqligaa lagu siiyey aqoonaa lagu siiyey waxaa lagu siiyey maxaan ku idhaahdaa maalmo badan iyo habeenno badan oo aad ka kasbaysa khibran wixii dadka ku burburay oo horumar ku sameey waaya inaan ka leexahay waa muda dadka Soomaalida inay u diyaarsan yihiin inay maraan maraahil oo ay higsadaan marxalad ay ku faari karaan horumar haddii aan marka waxay u istaagno mitaal ama mitaalin awal ah Nabi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam wa khayru mitaal waxaa laga soo saaray bulsho nooc ahaan bulshada Soomaalida oo qabiilka uu ku xoogan yahay qofka awoodda badan ama qofka awoodda qofka kale awoodiyo maxaa lagu daaweeyey marka ummadaas waxaa lagu daaweeyey inay yihiin umadsan ilaahay harkiisa iyo nidaamka Nabi Muhammad la soo diray sallallahu alayhi wa sallam waxaa laga yaabaa marka la yidhaahdo aayadaha qur-aanka laga xafidsanahay iyo axaadiista aan xafidsanahay saxaabada qaarkood ridwaanullaahi calayhim wixii ay xafidsanaayeen waa qur-aan aan xadiidka ay ka badan yihiin laakiin kitaabka marka la yidhaahdo cushur inaan soo gaarin sababtu wax kale ma aha waa aaminsanaanta iyo ku dhaqmidda waxa ahaatay wixii shalay lagu daaweeyey bulshooyinka la midka ahaa maanta waxay noqon karaan daawo ku sii darso aqoonta maadiga ee 1440 iyo dheeraadka sababta soo socotay bani aadamka oo sabay ku darso oo ama ah hab maamul ama hab siyaasadeed ama hab dhaqaale oo haddaa isku dhafrintaas waxaa soo saaraysaa bulsho ka fiyo cudurro fara badan ay ka mid yihiin qabyaalada ay ka mid yihiin musuqmaasuqa ay ka mid yihiin wansi iyo caajis iyo ay ku noolaadaan dadka marka la fiiriyo bulshada Soomaaliyeed fahamkooda iyo firfircoonidooda ahlan yihiin arrintaas laakiin waxay u baahan yihiin juhdiga lagu bixiyo in la fahmo dawada aan u baahannahay noocay siyaasadda dadka ka qaadaysa ama siyaasad ka jawaabaysa baahidaas nolosha waxyaabaha muhiimka ah oo laga yaabo in mararka qaar laga dhigto waxaa ka mid ah waqtiga ay u baahan tahay waxbarashada ama waqtigeeda waxaa ku bixinaya laga soo bilaabo yaraanta ilaa meesha ugu dambaysa waqtiga waxaa lagu ognahay dadka Soomaalida aad muhiim u ah intooda waqtigu waa waxa keliya oo personaalka u haysto
diinta sida ay tahay aan ku fahmo ama aan ku fahmo labadaas oo mar haddii lagaa rabo inaad barato dhalashada ilaa dhalashada mas-uuliyad weynaa waxaa fuulaysa waalidiinta see u ilaalinaysaa carruurtaada mararka qaar waalidiintu waxaa laga yaabaa inay aad u fikiraan carruurtooda inay ku helaan hooy iyo waxay rabaan laakiin mas-uuliyaddu kaasaa ku مسؤوليته وتربيه مسؤوليته ووقره مسؤوليته وديانه عروضها سيروا حياتها فرمك الشر هذه مرة عروضي أي وقت يوقعها أما قشرك وينوشوا بسيرة أصحاب الرسالة وأقسام haddii waxbarashada laga qaadayo ama waxbarashada ay u baahnaayeen saxda ay waayaan ama waxbarasho khaldan ay malaha ayna noqonsanaya isweyni bulshada nuusan oo boqolkii konton iyo shan in ka badan aysan waxbarashaynin inta waxbarashada heshana waqtigoodii waqti fiican aysan ku helin sida u badbaadi karaan oo uga samayn karaan adduunka maanta waxa ugu tartamaya waa aqoontaas waxay soo bilaabanaysaa sida aan sheegnay min almahdi ilay cilmiga xadiidka wuxuu muujinaya ama wuxuu tilmaamaya ama wuxuu caddaynaya yani caamilka barbaarintiisu waxay ka bilaabayaan dhalashadiisa bal waxay ka bilaabayaan waxbarashadiisa maadaama aan nahay bulsho waxbarashada jecel inaan u jeesano inay noqoto bulshadeedu bulsho waxbarasho dowladaha dariskana kenya waxay soo qaadaan yani sida ay waxbarashada u dadaalaan kulay in badan oo halkaa fadhiyo camalayna aada u canka waxaa la keliyaa camalayna asxaabti 10 saac ama 2 saac ama 4 subaxnimo wuxuu soo qaadaya galabta 10 saac kaligiisa wuxuu ku jiraa intaas waxbarasho aan isweydiino ilmaha soomaalida goormay iskoolka tagaan goormay ka soo laabtaan halkaas waxaa kaga soo daraysa jawaab waqtiga oo si sax ah loo isticmaalo waa midka kaliya oo keeni kara inaad ka gudubto marxalada diyaarintaas haddii fursad loo siiyo dadka dhalinyarada ah ama hadda jooga ama soo socda oo ay marxaladii koowaad soo dhamaadaan soo dhameeyaan waxaa bilaabanaya jihaynka xaggee u jihaynaysaa xaggee aadaya dadka o dhan waxay barteen jaamacadaha soomaali geliyeen maxay sameynayaan dowladdu hadda inay leedahay markaas meel ay kala jeyso dadka qaarna siimaa waxbarashada dadka qaarna dowladda iyo xifro dadka qaarna qaar macallimiin dadka qaarna qaar ciidan dadka qaarna shaqo abuur dadka wax dhisaya oo ka qayb qaadanaya qaranimada laysa bidaruura inay kulligooda dowladda u shaqeeyaan haddii aad gacan siyaasanayso waxaa ka qayb qaadatay dhismaha dowladnimada oo sida uga qayb qaadata kow horta waxaa bulshada laba waxaa xasanasho intaas qaranka macna u samaysay wasaaradda waxbarashada ama manaahijta waxaa la rabaa inay xididaan tirada jaamacad gelaysa sanad kasta
laakiin taas maxay ku timid waxay ku timid tarbiyada waxay ku timid akhlaaqda kuwa ayaga lamida waxay ku howleeyihiin inay waxdilaan kuwa ayaga lamida waxay ku howleeyihiin inay waxadaan kuwa ayaga lamida waxay ku mashquulsan inay gaadmaan kuwa ayaga lamida waxay ku mashquulsan marka mas'alada tarbiyada waa wax badan kaaga baxayay oo dhisidda akhlaaqda ayaa marka hore noqonaysaa nuqdada kale oo aaray ugu duwa waaye dadka inay noqdaan dad wax soo saar inta badan waxaa aragnaa dadka soomaalida duruufihii ay soo mareen darteed dhinaca shaqada aad ay u weyntay ama qofka inuu asaga shaqa abuurta ama shaqa u helo inta badan waxaa lagu mashquulaa in laga helo shaqa xafiisnimo shaqa xafiisnimo shaqa fiican tahay laakiin waxaa dhici karta shaqa ka fiican inaa abuuri oo adiga dadaas ka shaqaalay marka la fiiriyo kartida soomaalida iyo marxaladda ay soo mareen ay sida uga jawaabeen ama ganacsi ha la yidhaahdo ama waxbarasho ha la yidhaahdo ama adeegyada kale oo caafimaadka ay ka mid yihiin runtii dadaal badan soo socda laakiin ku filan tahay intaas bulshada soomaalida kuma filan waxaa loo baahan yahay kor loo qaado markaad haynta ka soo gurto oo dadkii ay kala galaan fiildiyo kala duwan waxay helayaan khibrad waa marka ay ugu muhiimsan tahay marka marxaladaas marxaladda wax soo saarka ugu badan ay gaarayaan waa markaas kii macallimada loo jiray inuu noqdo macallin xirfad leh kii ciidan loo jiray inuu noqdo ciidan xirfad leh kii loo jiray inuu khadamaad sameeyo ama adeeggiisa sameeyo khibrad loo kasbado kadib waxaa gaaraysaa marxalada gaaro oo dadkii maraaxishaas kala duwan ama waxbarasho ama khibrad soo maray inay u diyaargaroobaan marxalada qiyaadadu inkastoo ay intaa badan ay tahay jiro ilaahay jiro laakiin haddana waa la waxay u baahan tahay diyaarin iyo qofka in loo diyaariyo waxaa la rabo inuu qabto waxayna ka mid tahay cilladaha dadka soo wada inaan loo diyaarin iyo waana waxa ugu muhiimsan ee ummada ay diyaariso haddii aan u laabtanka xisbiga himilo axsaabtan hadda bilaabanaysa ama bilaabatay waxyaabaha ugu muhiimsan oo laga rabo waxa waaye diyaarinta dadka in loo diyaariyo marxalada kale qofkii loo qaadi karo mas-uuliyad inuu qaadi karo waxaa lagala soo bilaabaa ardayda dugsiyada dhexe dugsiyada sare jaamacadaha ayagoo diyaarsan u diyaarsan inay uma hogaamiyaan ayagoo howlahoodii kala wataan waxbarashadoodii iyo xirfadahoodii kale inay haddana u diyaarsan yihiin mas-uuliyaddaada waxa ku muhiimsan waa laba shay qofka shaqada loo dhiibana inuu qabo karo iyo inuu hufan yahay cilladaha ugu waaweyn mahaysaada waxa waaye qofkii shaqada loo dhiibaayo looma fiiriyo aqoon iyo khibrad laba lagama fiiriyo hufnaan waxayna ka mid tahay dalka waxa ku haya meesha la joogo dhaqankaas ma aha mid cusub waa mid hore waxayna ka mid yihiin dhaqankaas marka iyo dowladnimada kalsoonida baabi'iyey dowladnimada soomaaliya ka qaadayso waxaa laga hadlaa waa qofka mas-uul loo dhiibay ilaa aqoon qabsaday muxuu haystaa taas waxay tusineen barbaarintii hore ee hore qofka laguma barbaarin maalka caamka dembigiisu inuu duwan yahay maalka khaaska maalka caamka waa labada waxa ummaddu leedahay qofka marka xafiiska loo ogo wuxuu maamulayaa soo ama
awoodaha